السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa waalidiinteena sida loo dhaqmi lahayn waxaana kamid ah aayad quraan Ilaah ku sheegay hadana akhrin doona وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. hadda waxaan gelaynaa meeshii sida oo aniga hadda oo ilaa asaas tahay aan geli doonaa. marka waxaan leenahay caruuray ilaahay maxaa ilaahay nu siiyay waa la waalid. mid waxaa waayay waalidkeena hooyo, midna maxaa waayay aabbo. marka maanta waxaan ka hadlaynaa hooyadeena aabbaheena sida loo dhaqmi lahayn. qof walba dabeecad u leeyahay, dabeecad qaas ah. أنا dabeecad leeyahay, qofkaas dabeecad leeyahay, qofkaas dabeecad leeyahay. qof walba dabeecad qaas ah oo Ilaahay siiyay. marka maanta waxaan sheegaynaa caruure inaad iska daaftiin hooyadiina aabbeena ku afcelinaysiin. hooy mardumada markaas ay ku daado waraa xasaas u sameys hooy mardum maanta waxay ku diiday meel in aado. tusaale maanta marka meel aadina diiday ay ku diiday hooyna mas aabana oo aadana kabacdi hooyada waxay murugsanay adoo warka marka ku celcelisay aragta xarta ma xarta ina oo lagu soo ina oo hooyada yaaba ina oo fasax tahay ay ku duhaan. marka adu marka lagu fasaxo wadada amal ha ku dhici karo ma ogid Ilaahay og. maalinta marka maxaa sameyn kartaa markaa aayad kale aan akhrinayna ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمة التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين. صدق الله العظيم. marka hooyada aabba ma taqiyatid Ilaahay ma ogo, Ilaahay ku og. qof aqayanaysa musaxa ka hadaysa Ilaahay ku jeedo. marka maxaa ka bariyay maanta ka bariyay hortiisa istaa qayaanada wax adduunka ugu xun inay tahay oo waalidkaaga tigaysatid. qofka anda maanta Ilaahay ku jeeda meesha rabtigal daaqad isku cariiri ko meesha rabtigal maanta Ilaahay ku jeeda dugsi xataa gal dugsi Ilaahay ma ka qorsoonaysid. marka carruur maanta waxaan sheegayna waxaasna iska dhaafo yuko xaj marka maanta waxay ku daad hooyo wiilkayga inuu maxaana daara dusheega waxaa inta xaqay ku daad أو حاقدة maalinta adii xaaqday maxaa faa'iido kaaga soo kordhay su'aashaas ayaan soo weydiiyey. asxaabay maanta su'aashaas ayaan soo weydiiyey hooyada marka dulka u xaaqday marka kaa soo faa'iido maxaa kugu soo kordhay su'aashaas ayaan weydiiyey. marka maxaa idin leeyahay ko maxaa waa in la iska ilaaliyo hooyada murug dood xaasna iska daaf murug hooyo waxaas ku celcelis hal mar ku egto hal mar hooyada did aad ku adkaysato laakiin inaad ka keento isku qasbin inaad ku keento kii haye haddaad tahdo jig wax kugu dhacay iska ilaali. baawur duur rugeyshan karaa kaliyaadoo ameel lagu dafi karaa kaliyaadoo sababtaas hooyada marka hagelin inay Ilaahay ka dahdo. marka carruur maanta waxaan sheegnaa labadaas aayad waa in akhriyay tas hooyada marka hagelin inay Ilaahay ka dahdo.
marka caruur maad xayn sheegna labadaas aayad waa in akhriyay marka xaalindeena maanta oo ku cusbeenta marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi